kulanti wanaagsan daawade halkani waa channelka wararka ee Somali News ku soo dhawaada tabinteena qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka madaxweyne qoorqoor oo kulan isugu keenay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Saadiq Joon iyo kulanajiis oo cadaawad weyn ka dhaxaysay Roble oo bilaabo qorshe cusub oo Fahad Yaasiin ku dhaafinayo kursi yaala magaalada Beledweyne iyo kulamo aan kala joogsi lahayn oo halkaasi ka socdo Villa Soomaaliya oo dejisay qorshe kama dambaysa ee doorashada magaalada Garbaharre iyo Axmed Madoobe oo cabasho ah iyo dawladda Mareykanka iyo kuwa kale oo muwaadiniintooda si toos ah kaga baxay dalka Ukraine qodobada iyo qodobo kale ayaa qayb ka ah tabinta maalinimo ee wararka Somali News ee u diyaar garooba daawadayaal markale kulan wanaagsan waa maalinimo Talaada 15 Febraayo 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahintooda guda galno haddii aynu ku bilowno madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa xalay saqdhex kulanka foolka isugu keenay siyaasiga caanka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Saadiq Joon iyo sidoo kale Cabdullaahi Kulanajiis oo saddexdooduba loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kulankan oo ah mid xasaasi ah ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa iscafin sida ay shaacisay madaxtooyada Galmudug qoraal kooban oo ay soo saartay kulankaasi kadib sidoo kale qoorqoor ayaa kula dardaarmay saddexdan xubnood inay iskala shaqeeyaan horumarka dalka gaar ahaan inay si dhab ah baarlamaanka ugu matalaan deegaanada Galmudug madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa kulan ujeedkiisa ah iscafin iyo dardaaran la qaato xubno kamid ah xildhibaanada loo doortay oo ay kamid ahaayeen hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame xildhibaan Cabdullaahi Aadan Kulane iyo xildhibaan Saadiq Cumar Xasan Saadiq Joon oo dhamaantood ku guuleystay doorashada xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee dhawaan ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada Galmudug Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa siyaasi mucaarad ah waxaana cadaawad dhinac waliba ah kala dhaxaysa labada nin oo kamid ah kooxaha sida weyn ugu shaqeynaya madaxweyne Farmaajo oo waqtigiisu dhamaaday Saadiq Joon ayaana lagu xasuustaa weerarkii lagu qaaday hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo lagu dilay qaar kamid ah ilaaladiisa isagana lagu dhaawacay kadibna la xiray isagoo markii dambena maxkamad la saaray inkastoo ugu dambeyntii Saadiq Joon madaxweyne Farmaajo xilka uu ka qaaday kadib markii uu hortaagay muddo kororsiga labada sano ee hore lagu kadibna uu sheegay inuu darajooyinka ka xayuubiyay dhanka kale Cabdullaahi Kulanajiis ayaa kamid ah siyaasiyiinta sarsare ee ka tirsan oo sida weyn isku hayeen siyaasigan oo tuhun badan kala qabeen maadaama aad isugu dhow yihiin Farmaajo iyo Fahad Yaasiin si kastaba ha ahaatee saddexdan xubnood ayaa lagu doortay Dhuusamareeb kuna cusub golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ku soo biiray baarlamaanka 11 ee dalka kuwaas oo soo dooran doona madaxweynaha cusub ee dalka uu yeelan doono Cabdiraxmaan Cabdishakuur hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa ah musharax madaxweyne ee doonaya qabashada xilka ugu sareysa dalka horena tiro dhowr jeer isugu soo sharaxay balse aysan guusha raacin halka Kulane oo kamid ah saraakiisha sarsare ee hay'adda NISA laguna tuhmayo dilka Ikraan Tahliil iyo sidoo kale gabadhfalyo kale ee siyaasadeed balse dad badan arrimaha siyaasadda ka faalloodo ay sheegayaan xilka xildhibaannimo ee la siiyay inay tahay mid uu kaga dhowmanayo kiisas badan ee lagu tuhmayo Saadiq Joon ayaa waayihii dambe ku sugnaa Galmudug tan iyo markii madaxweynaha muddadiisu dhamaatay oo xilka ka xayuubiyay taas oo dhankiisa Qoorqoor u xiray kursiga uu ku soo baxay isla markaana uu qayb ka yahay dadka uu ku matali doono hogaamiyaha Galmudug ayaana faray la xubnahani inay sida ugu wanaagsan ay shaqada u gutaan isla markaana deegaanka iyo dadka doortay ay si gooni ah uga warhayaan markaana ra'iisul wasaare Roble ayaa bilaabay qorshe xasaasi oo ka dhana oo kursi uu rabo Fahad Yaasiin uu ku dhaafinayo iyadoona magaalada Beledweyne ay ka socdaan kulamo aan kala joogsi lahayn ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa wada qorshe dib loogu dhigayo doorashada kursiga oo lagu dooran rabo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo tirsigiisu yahay hoob 86 sida aynu xogta ku helnay xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa u yeeray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Gelle Yuusuf wuxuuna ku amray in dib loo dhigo doorashada kursigaasi hoob 86 oo la filayo inay Beledweyne ay ka dhacdo toddobaadka soo socdo Roble ayaa gudoomiyaha u sheegay in tartanka kursigaasi la qaban doono markii uu dalka dib ugu soo laabto xildhibaanku ku fadhiyay ee Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo mar kale rabo inuu la tartamo kursigaasi dalkan uga maqan yahay safar caafimaad inta badan xubnaha guddiga doorashooyinka ayaa ka hor yimid qorshaha uu wada ra'iisul wasaare Roble ee la marsiinayo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal waxaana lagu adkaystay in doorashada kursigaasi la qaban doono waqtigii lagu talagalay ra'iisul wasaare Roble oo hore ay isku qabteen Fahad Yaasiin ayaa xoog isugu geynaya sidoo kursigaasi u dhaafin lahaa Fahad oo hadda ah la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha ummadda xuleedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
waxaa u muuqata qorshaha ra'iisul wasaare Roble mid si weyn uga hor imaanaya xubnaha guddiga mana la garanayo tilaabada xigto uu qaadi doono maadaama tan uu ku fashilmay. Xogaha hoose ayaa tilmaamaya in guddoonka doorashada ay saaxiibo dhow yihiin ra'iisul wasaare Roble, balse xubnaha kale ee guddiga doorashooyinka Hirshabelle iyo tan federaalka ay kasoo horjeesteen qorshahaasi uu damacsan yahay ra'iisul wasaare Roble. Magaalada Beledweyne dhankeeda waxaa ka socda kulamo aan kala joogsi lahayn oo yeelanayaan siyaasiyiin rugcadaaya oo ka yimid Muqdisho oo xilal haatan doonayo madaxweynaha Hirshabelle iyo mas'uuliyiinta kale ee maamulkaasi halkaas ku sugan iyo sidii doorashada loo soo gabagabay lahaa. Waxaa inta badan doorashadaasi la sheegayaa inay filla Soomaaliya gacanta ku haysa, balse xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa hardan xoogan ugu jiro sidoo dhankiisa ugu yeelan lahaa tilaabo xoogan iyo sidoo kale kaalin weyn oo muuqato doorashada ka dhacaysa Beledweyne maadaama gacanta uu ku hayo maamulka doorashada Roble. Kasoo ay xaaladda Beledweyne tahay mid degan, haddana waxaa ka socota siyaasad iska soo horjeedo. Waxaa yimid musharaxiin badan oo doonaysa kuraasta dhawaan la shaaciyay ee deegaan doorashada labaad ee maamulka Hirshabelle, waxaana haatan qorshuhu yahay inay soo gaaraan kuwo kale oo ka socda xafiiska ra'iisul wasaare Roble iyo sidoo kale kan farmaajo ee filada, halkaas oo dhinacyadaasi kulamo iska soo horjeeda ay kula kala yeelan doonaan madaxweynaha Hirshabelle ku-xigeenkiisa iyo mas'uuliyiinta kale ee maamulkaasi iyo guddiga doorashooyinka maamulka Hirshabelle. Ra'iisul wasaare Roble waayihii dambeba saaxadda siyaasadda maalmihii dambe ka maqnaaya haatan soo laba kacleeya isagoona si weyn uga soo dhex muuqanaya isku dayaya doorashada maamulada oo mar kale si xawliya ku socoto. Lama oga in doorashada kursiga khilaaf uu horseedi doono Fahad Yaasin u tartamayo oo xogaha badanba ay sheegayaan inay filla Soomaaliya wado qorshe lagu soo saarayo, balse ra'iisul wasaare Roble xafiiskiisa uu dhankiisa wado sidii loo dhaafin lahaa kursigaasi Fahad Yaasin Xaaji Daahir. Markaana Garbaharey, xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa u muuqda mid dejinaya istiraatiijiyad cusub oo ku galayo arrimaha doorashooyinka golaha shacabka, gaar ahaan kuraasta taalla magaalada Garbaharey oo ilaa hadda aysan jirin wax doorasho ah oo halkaasi ka bilaabatay iyo qabanqaabadeeda. Ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa laga ogaaday inuu Farmaajo u diidan yahay sidii 16 kursi ee la Garbaharey ay gacanta ugu dhigi lahaa Axmed Madoobe oo si weyn isaga soo horjeedaan. waxaana xogaha ay sheegayaan inuu qadka telefoonka Farmaajo kula hadlay maamulka gobolka Gado. Axmed Bulle Canjeex, gudoomiyaha ay dowladda u magacowday gobolka Gado, ayaana la sheegay in la hordhigay tilaabooyin adag oo ah in doorashadaasi sida ugu dhaqsiyaha badan loo bilaabo dhawaan, taas oo la ogeyn sida ay u suurtagali tahay maadaama jadwalka doorashada iyo waqtiga la qaban doono xubnaha u sharaxan laga sugayo maamulka Jubbaland guddiga doorashooyinka u qaabilsan. xogaha la ogaada ayaa inuu Farmaajo si dhow ugu yeeray qorshe ceel waaq lagu wareejinayo haddii Garbaharey la isku afgaran waayo deegaan doorashada in lagu qabto, taasoo ah mid muran badan sii sababaysa, balse filla Soomaaliya ayaa ka feegjigan damaca Madoobe ah in afmadow laga dhiga bedelka Garbaharey, halkaas oo xildhibaano taageersanaa Farmaajo laga soo saaro. Odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda beesha madaxweynaha ayaa kulamo gaar ah waxay xamar kula qaateen Garbaharey, kuwaas oo iska soo horjeeda qorshaha laga abaabulayo magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose, caasimad ku meel gaar u ah maamulka Jubbaland. Madaxweyne Farmaajo ayaa 5 sano xukunku hayay aad isaga soo horjeeday madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe. Haatan ayaana qorshuhu yahay in la gudagalo doorashada maamulka Jubbaland ee deegaan doorashada labaad ee magaalada Garbaharey oo inta badanba maamulkeeda filla Soomaaliya ay gacanta ku hayso. walow ay dhawaan maamulka Jubbaland cabasho xoogan ka muujiyeen doorashada magaalada Garbaharey, sheegana haddii aan jawaab degdeg ah laga helin filla Soomaaliya inay ka tashan doonaan maamulka Jubbaland. waa siday Xuseen Axmed Madoobe ayaa caqabad weyn ka haysata gobolka Gado, iyadoona gudiyada u qaabilsan dhanka doorashooyinka ay xuseen in gobolka Gado doorasho xilligan aan laga qaban karin maadaama ay xuseen in beelaha dega gobolkaasi haddii dabi heshiisiin ballaaran aan la dhex dhigin oo ka dhici karta dagaal gacan ka hadal ah. habqaybsiga kuraasta deegaan doorashadooda ay tahay gobolkaasi 16 kursi ee taalla Garbaharey. ugu dambeyntiina dowladda Mareykanka ayaa diblomaasiyiinteeda caasimadda dalka Ukraine kala baxday halkaas iyadoo u wareejin doonta magaalada u dhaweey xuduudda dalka Poland. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shaaciyay arrintan uu sheegay in ciidamada Ruushka ay dhaqdhaqaaq xoog leh ay ka wadaan xuduudaha Ukraine, iyagoona si kordhiyay diyaargarowga ciidamada Ruushka ee dalkaasi kaabiga ku hayo. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa soo saaray bayaan uu ku sheegay in go'aankani in howlaha safaaradda lagu raray magaalada qiyaasta 50 kilomitir u jirto oo soodinta lala Ukraine ee la wadaagta dalka Poland ee ka dhalatay walaaca laga qabo shaqaalaha iyo badqabkooda ee ku sugnaa dalka Ukraine.
tilaabadan ayaa imaanaysa xilli saraakiisha Mareykanka ay ka digeen in xuduudaha Moscow ay wado aruurinta in ka badan 100,000 oo askari oo meel u dhow xuduudaha Ruushka ay la wadaagto Ukraine iyo dalka xilli kastana la qaadi karo weerar ka dhan ah Ukraine magaalooyinka ay ku jirto caasimadda dalkaasi. Surdoonka Mareykanka ayaa rumaysan in Ruushka weerar weyn ay ku qaadi doonaan dalka Ukraine, waxaana sawirro la qaaday ay muujinayaan ciidamada Ruushka oo xooga xuduudda ay ku galeen oo sare ka muuqdo inay dagaal u diyaar garoobeen. Ruushka ayaa si joogto ah u beeniyay inuu dagaal ku hayo dalka Ukraine oo doonayo inuu ka mid noqdo gaashaanbuurta NATO, taas oo si weyn uga soo horjeesta Ruushka. Inkastoo dowladaha awoodda weyn oo Mareykanka qayb ka yahay oo Ruushka kaga digeen haddii tilaabadaas uu qaado in cunaqabatayn heer caalami la saari doono. Inta ayaan kusoo gabagabanaynaa tabinta wararka Somali News. Meel lamid ah khiyaar inta kulmi doona nabadgelyo.